Soomaaliya ma waxay wajihi doontaa dagaal la mid ah midka ka socda Ukraine. Warbaahinta Horn of Africa Intelligence ayaa daabacday warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ay ciwaan uga dhigtay Soomaaliya iyo Ukraine, dagaalka macdanta iyo halganka siyaasadeed. Xogta ku jirta warbixinta Horn of Africa Intelligence ayaa lagu muujiyay sida ay marxalado isku mid u wajahayaan Ukraine iyo Soomaaliya kadib 10 sano oo labada dal ay wajaheen xasilooni darro, dagaal iyo faragelin shisheeye. Inkastoo sababaha qalalaasaha Soomaaliya iyo Ukraine ay kala duwan yihiin, haddana hal arrin oo muhiim ah ayaa inta badan la iska indhatiraa, waana kheyraadkooda macdanta. Soomaaliya iyo Ukraine ayaa la rumaysan yahay inay haystaan macdan aad u badan oo qiimo leh, taasoo ka dhigaysa bartilmaameed istiraatiiji ah oo ay dunidu soo wada eegayso. Duulaanka Ruushka ee Ukraine waxaa qayb ka ah rabitaankiisa ah inuu xakameeyo kheyraadka Ukraine. Dhanka kale, Soomaaliya ayaa weli ku jirta fowdo ka dhalatay khilaafyo gudaha ah iyo nidaamyada aan xoogganayn, taasoo u diidaysa Soomaaliya inay kheyraadkeeda ka faa'iidaysato. Warbixinta ayaa daah qaadaysa sida labada dal ee Soomaaliya iyo Ukraine ay dhibano ugu noqdeen kheyraadka ay qaniga ku yihiin. Aan ku horeyna Ukraine oo bartilmaameed u noqotay Ruushka. Ukraine waxay hoy u noqotay qaar ka mid ah kaydka macdanta ugu weyn adduunka. Waxay leedahay kayd badan oo bir ah iyo macdanaha loo isticmaalo arrimaha hawada sare iyo arrimaha difaaca. Macdanahaas ayaa kala ah titanium, uranium, lithium iyo beryllium. Macdanta lithium waa qayb muhiim ah marka laga hadlayo wax soo saarka baytariyada iyo baabuurta korontada ku shaqeeya. Waqtiganna waa mid ka mid ah macdanaha loogu doonista badan yahay adduunka oo idil. Ruushka oo ah waddan qani ku ah saliidda iyo gaasta ma haysto kheyraadka lithium ee muhiimka ah. Baahida sii kordhaysa ee tamarta nadiifta ah, xakamaynta sahayda lithium ayaa noqonaysa mid istiraatiiji ah. Gobolka Donbas ee dalka Ukraine oo ah xarun warshadeed oo weyn ayaa sidoo kale hodan ku ah dhuxusha iyo kheyraadka kale. Tan iyo sanadkii 2014, Ruushku wuxuu isku dayay inuu ballaariyo xakamaynta hantida macdanta ee Ukraine. Duulaankii baaxadda lahaa ee sanadkii 2022 uu Ruushku ku qaaday Ukraine kaliya ma ahayn mid siyaasadeed ama salka ku haysay taariikh hore sida inta badan laga maqlo warbaahinta, balse udub-dhexaadka ujeedooyinka duulaankii uu Ruushku ku qaaday Ukraine sida cad waa sidii uu Ruushku u xakamayn lahaa waxna uga heli lahaa kheyraadka aan meel kasta laga helin ee Ukraine ku kooban. Iyadoo la xakamaynayo gobolada macdanta hodanka ku ah ee Ukraine, Ruushku wuxuu doonayaa inuu ka hortago dalalka Yurub inay si fudud ku helaan kheyraadka Ukraine. Inta uu gacanta ku hayo Ruushku kheyraadka Ukraine, waxay xoojin doontaa awoodda gorgortanka ee Moscow, waxayna wiiqi doontaa dhaqaalaha reer galbeedka. Istiraatiijiyadan kheyraadka ku dhisan waxay la mid tahay sida Ruushku uu awood ugu helay inuu yahay cidda Yurub siisa gaaska. Haddii aad fahantay colaadda Ukraine inay salka ku hayso kheyraadka oo uu Ruushku kaga hormarayo reer galbeedka, markana aynu eegno dhibano kale oo ah Soomaaliya oo aan weli ka faa'iidaysan kheyraadka ay qaniga ku tahay. Soomaaliya waxaa la aaminsan yahay inay leedahay macdan aad u badan oo ay ku jiraan lithium, titanium iyo uranium. Sahanada juqraafiga ayaa tilmaamaya in gobolada waqooyi iyo sidoo kale qayb ka mid ah bartamaha Soomaaliya ay ku jirto macdanta muhiimka ee lithium. Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan Ukraine, Soomaaliya ma aysan awoodin inay horumariso qaybta macdanta sababtoo ah xasilooni darro daba dheeraatay iyo maamul xumo ayaa ku habsatay Soomaaliya. 34 sano ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxay ku jirtay jahwareer siyaasadeed, dagaal sokeeye, argagixiso, faragelin shisheeye oo naafeeyey qarankan. La'aanta dowlad dhexe oo awood leh ayaa u sahashay dagaal oogayaasha, maleeshiyaadka iyo kooxaha xag jirka ah sida Al-Shabaab inay ka taliyaan qaybo ka mid ah dalkaas. Kooxahani waxay awood ku yeeshaan
dhulka aysan ka jirin nidaamyada xooggan mana laha wax qorsho ah oo ay ku horumariyeen dhaqaalaha. taa beddelkeeda waxay ka faa'iidaystaan howlaha sharci darrada. waa maxay sababta Soomaaliya ay ugu jirto muddo dheer xasilooni darro? xasilooni la'aanta Soomaaliya ma aha mid ku timid xaalad shil ah. waxaa qayb ka ah xoogag shisheeye oo diidan inay Soomaaliya horumariso khayraadkeeda. quwadaha shisheeye ayaa muddo dheer ka faa'iidaysanayay dowladda taagta daran ee Soomaaliya si ay u helaan khayraadka badda iyo goobta istiraatiijiga ee ku teedsan ee gacanka cadmeed. si ka duwan dalka Ukraine oo ay ka jirto dowlad xooggan oo taageero military ka helaysa reer galbeedka, Soomaaliya ma haysato kaabayaal dhaqaale iyo amni oo u suuro gelinaya inay ilaaliso khayraadkeeda. musuqmaasuq iyo hoggaan xumada oo ay u dheertahay xaalad amni ayaa dalka ka fogeysay inuu helo maalgashadayaal caalami ah, ayaa ka dhigay Soomaaliya inay lumiso helidda shirkado qoda macdanta. halka Ukraine ay la dagaalamayso duulaanka Ruushka, Soomaaliya waxay la daaladhacaysaa xoog gudaha ah iyo dibadda ah oo doonaya inay wiiqaan doorka Shiinaha iyo dalalka kale ee caalamka. Shiinuhu wuxuu si adag isha ugu hayaa macdanta lithium-ka adduunka oo dhan. wuxuu si weyn u maalgeliyaa macdanta lithium-ka ee Afrika, Koonfurta Ameerika iyo Australia. haddii Soomaaliya ay xasilooni hesho oo ay bilowdo howlaha macdanta, waxay soo jiidan kartaa maalgashiga Shiinaha. si kastaba ha ahaatee, tani waxay horseedi kartaa xiisad juqraafiyad cusub, iyadoo wadamada reer galbeedku ay doonayaan inay ka hortagaan saameynta Shiinaha. wuxuu horey Shiinuhu u qaaday tallaabooyin uu ku soo bandhigay xiisaha uu qabo kaydka lithium-ka ee Ukraine. dagaalka ka hor, shirkadaha Shiinuhu waxay ka wada xaajoonayeen heshiisyo lagu horumarinayo qaybta lithium-ka ee Ukraine. dagaalku wuxuu carqaladeeyay qorshayaashaas, laakiin waxaa cad in quwadaha caalamku ay garteen qiimaha istiraatiijiga ah ee macdantani ay leedahay. maxay Soomaaliya ka baran kartaa Ukraine? Soomaaliya iyo Ukraine waxay wadaagaan caqabad isku mid ah. waa halgan siyaasadeed oo ku salaysan khayraad. awoodda Ukraine ee iska caabinta gardarrada Ruushka ayaa qayb ahaan sabab u ah xulafada ay leedahay ee wadamada reer galbeedka. Soomaaliya waxaa ka maqan iskaashi xooggan oo noocaas ah si ay uga baxdo 10 sano oo xasilooni darro ah. Soomaaliya waa inay xoogga saartaa dhismaha dowlad xasiloon, xoojinta amniga, soo jiidashada maalgashi shisheeye oo dhab ah, horumarinta waaxda macdanta. waxay Soomaaliya u baahan tahay qorshe fog. dowladdu waa inay xaqiijisaa in hantida macdintu ay faa'iido u leedahay dadweynaha ee aanay ka faa'iidaysan oo kaliya madaxda sare ama shirkadaha shisheeye. daahfurnaan, hay-ado xooggan iyo dib u habeyn amni ayaa lagama maarmaan ah. sidoo kale Soomaaliya waa in ay ka digtoonaato inay noqoto goob ay ku dagaalamaan quwadaha caalamka ee doonaya khayraadkeeda inay ka faa'iidaystaan. dunidu hadda waxay wajahaysaa dagaalka khayraadka, baahida caalamiga ee lithium iyo macdanaha kale ee muhiimka ah. waxay sii wadi doonaan inay qaabeeyaan siyaasadda caalamiga ee wakhtigan aynu joogno. wadamada khayraadkaas leh waxay ka faa'iidaysan doonaan kobaca dhaqaalaha ama waxa ay la kulmi doonaan. Soomaaliya oo leh khayraad aan laga faa'iidaysan waa inay wax ka barataa waayo aragnimada Ukraine si ay uga fogaato inay noqoto dhibano kale oo ay colaaduhu u soo jiidaan khayraadkeeda dhibaato. dunidu waxa ay galaysaa xilli macdantu muhiim u tahay sida saliidda iyo shidaalka. Soomaaliya iyo Ukraine labaduba waxay leeyihiin awood ay ku noqon karaan kuwa ugu waaweyn dhaqaalaha cusub ee adduunka hadday uga faa'iidaystaan siday tahay. sida markii la joogay shidaalka ay u noqdeen wadamada khaliijka carabta kuwa qani ah. si kastaba ha ahaatee, haddii aysan jirin xasilooni iyo qorshe istiraatiijiyadeed, waxay halis ugu jiraan labadan dal halkii ay ka faa'iidaysan lahaayeen inay lugaha la sii galaan colaad iyo dagaallo aan dhammaad lahayn. Soomaaliya waxay leedahay khayraad dabiici ah oo qaali ah sida shidaal, gaas, uranium iyo macdano naadir ah. kaydka shidaalka ee badda wuxuu noqon karaa mid weyn
sida Kuwait oo kale. Haddii la horumariyo, Soomaaliya waxay noqon kartaa dal si weyn uga faa'iideysta tamarta, taasoo khatar gelin karta wadamada khaliijka ee ku tiirsan dhoofinta shidaalka. Dowladaha khaliijka sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar ayaa Soomaaliya ka leh dano xoogan. Ma rabaan in Soomaaliya ay noqoto mid kula tartanta suuqa tamarta oo ay awood u leedahay inay kaga sare marto dalalkan aan soo xusnay. Wadamada Carabtu sidoo kale waxay ku tartamayaan sidii uu midba midka kale uu saameyn ugu yeelan lahaa Geeska Afrika. Imaaraadku wuxuu maalgashi ku sameeyay dekedaha, waxaana uu heshiisyo la galay dowlad goboleedyada Soomaaliya. Heshiisyadani inta badan waxay u qaabaysan yihiin hab Soomaaliya u rogaysa dhulka la qaybsan. Xasilooni la'aanta ka jirta Soomaaliya ayaa dalalka khaliijku uga faa'iideysanayaan dhinacyo badan. Qaar ka mid ah wadamada khaliijka ayaa taageera maamul goboleedyada si ay u helaan kheyraadka deegaanadaas. Dalalka khaliijka waxay kaloo dhaqaale badan siiyaan siyaasiyiinta, kadibna waxa ay ka dhigtaan kuwo ay iyagu hagaan. Loolanka dalalka Carabta iyo xulafadooda ayaa Soomaaliya ka dhigay dal aan lahayn siyaasado uu ku maareeyo kheyraadkiisa sidii loogu talagalay. Dalalka khaliijka ayaa ku andacoonaya inay Soomaaliya ka caawinayaan gargaarka iyo dadaalada la dagaalanka argagixisada. Si kastaba ha ahaatee, ku lug lahaanshahooda inta badan waxay kordhisaa kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo inay noqdaan kuwa aan laga maarmin oo derbiye kala dhex dhiga Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay maamul adag si ay u maareyso kheyraadkeeda una yareyso faragelinta shisheeye. Soomaaliya iyo Ukraine hal isgoys ayay hadda taagan yihiin. Labada wadanba waxay leeyihiin kheyraad macdaneed oo qiimo leh oo wax ka bedeli kara dhaqaalahooda. Ukraine waxay ku jirtaa dagaal ay ku dooneyso inay madax bannaanideeda iyo kheyraadkeedaba uga ilaaliso gacanta Ruushka. Dhanka kale, Soomaaliya ayaa weli ku xayiran xasilooni darro, taasoo u diideysa inay ka faa'iideysato kheyraadka macdanta. Casharka muhiimka ee halganka Ukraine waa in dalalka kheyraadka hodanka ku ah ay diyaar u yihiin inay isdifaacaan. Haddii aan la helin maamul adag, amni iyo iskaashi caalami ah, macdantu waxay noqon kartaa dhinaca kale masiibo, halkii ay noqon lahayd mid dhalisa barwaaqo. Soomaaliya waxay haysataa fursad ay ku beddesho aayaheeda, laakiin waa inay si dhaba uga howlgashaa sidii ay mustaqbalkeeda u sugi lahayd una noqon lahayd dal haga dhaqaalaha adduunka.